maga caliya maamuuska amiirweyn kula sooyaalka dhexdhexooda taariikhda ee maraaga loo yahay baan ku barayaaye bal maanta dadka maga caliya maamuuska amiirweyn kula sooyaalka dhexdhexooda taariikhda ee maraaga loo yahay baan ku barayaaye bal maanta بسم الله سود وهذا أهل يا أصحاب سومالوين أنت كو هذا شافك الصومالية أنت تشعل من ماذا ومدى الصوماليات دراويش رجي ترين شري ولا جود شري نسكو سكمت شري أرمي شري يا نسكو تاريخ لها بنعاو حكم كراهة ليا أنت دارود إسماعيل يدون تحريرتها يديها بكاليه أنت من ماذا الصوماليات يوذكرك ومدى الصوماليات شعل بنحكي السلام يا وحان آد وهم بليين يا شعبك غير أساسي خاتمه وأن ليه واحد قاعدين قوله نقول كم ده قول ديك بدن كسود داتي حنشرب بدن سوق بتين ولا البدن لو وايي مقالة لاني ودنتي فردية قوشة وحمر كتجي أما كتوجو حنشرب ركب كتجي اسكما تجين ديل يسعبتو كما تجين حنشرب ركب كتجي حمر waxaan rabaa inaan xalka ka hambaliyo iyagana oo bogaadiyo dawladda federaalka Soomaaliya oo uu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dal xoreeye dal dhise siyaasi diblomaasi oo aqoon-yahana sidoo kale waxaan hambaliyo bogaadin iyo ammaan iyo taashbuqor basaaraya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo kursiga siyaasadeed ee dawladda federaalka Soomaaliya ugu matala رئيس الوزراء حمزة عبد البر وحنا ليه رجال باتهاي درويش باتهاي دارود باتهاي أونول هليي باتهاي دبلوماسي باتهاي قنير سعد باتهاي قف دين إيا نقل ليه باتهاي وحن كاره هذه قلنا يا إن بدن وما قاعد تسيح اللي وادك سدي لجوجو أفلقات دي رئيس الوزراء وحن كله يا حمزة عبد البر وين هذير أبال راجع جيل بره هذا مغلي شرتي أبال راجع iyo dumar yar yar SSC baale baan ku leeyahay waan kugu hambalyeynaya doorka geesinimada leh ku dhaca leh matalaada maraga leh ee aad qaadatay sida milgaha iyo maamuuska leh ee madaxweynaha SSC khaatumo iyo waftigiisa aad u soo dhaweysay maamuuskii madaxweynaha u siisay ee milgaha iyo sharafta lahaa waan kugu hambalyeynaya waxaan kala rabaa inaan la hadlo ninkii xayir maareeyo waxaan arkay qoraalkii ra'iisul wasaaruhu soo qoray uu leeyahay madaxweynaha dawladda khaatumo intuu muraara dilaacay uu ku soo qorayo may gudoomiyaha gobolka uu la kulmo sool waxaan leeyahay oo maanta la hadlaya beesha dhexe isaaqow horta anigu waxaan isweydiiyaa reerka ma waalan yihiin ma miyir qabaan ma isriyeelayaan wiilka xamar jooga ee xildhibaanka ah ama ra'iisul wasaare ku-xigeenka ka ah ama wasiirka ah ee doonaya isagoo xamar jooga oo kursi Soomaaliyeed ku fadhiya inuu u ololeeyo kala go'a ummadda Soomaaliyeed oo uu qadiyada baarlamaanka Soomaaliya ka difaaco maamul gooni goosada waxa weeye waa qof aan xishoonayn dhaqan lahayn diin lahayn damiir lahayn kaasoo kale wuxuu istaahilaa in inta la dhangadeeyo laga soo raafa xamar ninka aan midnimo Soomaaliyeed u ololeynayn ama gabadha aan midnimo Soomaaliyeed u ololeynayn ee sidii Yurub iyo Mareykan iyo Ingiriis cayda looga qaadanayay inay xamar cayda ka qaadato marna cashuurta shabaab siiso xamar lagu gubayo marna ay kala goosa taageerta rabtay dhig xasaanada ummadda Soomaaliyeed aad u sidanta dhigtaan ka daga Hargeysa idinkoo dhammaystiran oo aan maamulka iyo dawladda iyo jamhuuriyadda Soomaaliya ka tirsanayn oo aan matalaad ku lahayn waxa doontaan gooni goosa laakiin
dhuumasho dhabarku muuqdo hasha geela cunte cabaada laydka yeeli maayo matalaad baanu ku yeelanaynaa baarlamaankii iyo dowladnimadii Soomaaliya gooni-goosadna waanu u ololeynaynaa cid idinka dhagaysanaysa ama idinka aqbalaysa haba yaraatee ma jirto waxaan leeyahay dalku isku hamrashadii iyo subaal xoftayntii iyo baarlamaankii musuqmaasuqa ku shaqayn jiray waa ka soo gudbay dowladnimo loo talaabsaday annaguna midnimo Soomaaliyeed baan u shaqaynaynaa sida wasiir fiqi sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuudow waxaanu kaala qayb qaadanaynaa xoreynta Soomaaliya waxaanu kaala qayb qaadanaynaa xoreynta dabargoynta shabaab anaa kula xidhanaya dareyska waxaanu ku keeni doonaa taangiyo waxaanu ku keeni doonaa wiilashii daraawiisheed ee gumaystaha dhulka ka saaray ee Ingiriis kiciyay ee sanado 3 sano jirta kiciyay annagana kicin doona guutooyin baanu keenaynaa daraawiisha garabkaagaanu nahay dowladnimadaana kugula shaqaynaynaa midnimada Soomaaliyeed baanu kugula shaqaynaynaa oday Soomaaliyeed baa tahay xamse cabdi barre matalaad marag leh ra'iisul wasaare daarood oo saaka caawayga qiimo badan oo aan uga karaamo iyo ixtiraam badan ay xamse cabdi barre wala aanu jirin maamuuskayga baan namarisay milgahayga baan namarisay xamse waad igu matashaa meeshaasi hambaliyo beerka ka ogsooni boodada markii aan ka jabayo boqonka taagiis habeenkiiba way bilan lahaa bahalka cawlaaye ninkii buurta dheer igala baxay beerka ka ogsooni ninkaan mikrafoon qaadan siidina qaadan ummadana ogeysiin dhulbaanta waxa uu qabtay ee maanta kursiga Soomaaliya ugu sareeyay maamuuska la arkay iga sameeyay bogga iyo beerka waa ka ogsooni taas boqorna waa ku saarayna xamse cabdi barrow cimriga ha jiro magaca ha jiro adaana nagu matali doona adaana kaaga dambeynaa ra'iisul wasaare madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ku leeyahay reer Sool waa garabkaaga hadii reer Sool iyo dowladnimada Soomaaliya loo kala sheekeyn jiray waa ka soo gudubnay caaw madaxweynaha iyaga waa kula joogaa isagaana matala masiirkayaga iyo matalaadayada firdhiya jaangoynaya isagaana kala hadlaysa hadii sharciyadu mar boqolana sheeganayso dhulkayagana dispute area qaar lagu sheegayo aad arki jirtay masiirkii dhulbaanta saaka firdhiyo kula joogo gacantiisa ku jira SSC go'aaminteedina gacantiisa ku jirtaa waana ku hambalyeynaa waana ku ognahay qabiilna qaranka ka weyn waxaan kala rabaa inaan ku daro oo aan la hadlo shacabka reer SSC waxaan idin sheegayaa haddii isaaq laga sugayay nabad oo go'aan nabadeed la sugayay beeshii isaaq waxay guddoonsatay dagaal musabixi moodiye maal wixii wahay hubbu soo siistay hal naaskeed nin gaadha oo isaaqana lagama iman waa weerar inaka ilaahay waa ku jabi doonaan laba masalaba waa u jabayaan dulmigii ay markii hore ku jabayna mar labaad waa ku jabayaan inagoo aan dulmi samayn oo aan xuduudkeennii dhaafin oo aan tallaabo xuduudkeennii ka tallaabinna waa ku jabayaan ta kale oo ah inaynu 400 oo ciidankoodiya oo raggii magaaladeena duqeynayay oo taliyay ciidanka amarkiisa bixinayay 400 oo ninuu ka mid yahay Faysal Cabdi Bootaan maxaabuus iyagoo maxaabiisno ah oo aynu gacanta ku hayno oo aynu xeerkii maxbuusnimada marinayna muuse kuma guuleysanayo waa ku jabayaa waxaan leeyahay ciidanka SSC khaatuma difaaca bir nooga dhiga waxaan kaloo leeyahay qurbo jooga dhulbahante daraawiisheed kuwa dalka lagu difaacay awoodooda iyo dhaqaalahooda waxaan leeyahay ka sii badiyay dadaalkii sidii guushu u dhacday waxaad moodaysaa inaynu yara jiifsanay oo dadkii ismahadiyeen laba dadaalba waa laydinka rabaa dhulbahanto qurbo joogiisow dadaalkii difaaca dalka waa laydinka rabaa inaad laba laabtaan dhismihii laascaanoodna waa laydinka rabaa ballanteenu waa laascaanood qurux badan ballanteenu waa laascaanood lagu soo wada hirto ballanteenu waa laascaanood nabada waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo aad baan idiin salaamayaa waxaan leeyahay taashka boqorka ay saaran dowladda federaalka Soomaaliya